bismillaahi raxmaani raxiim. halkani waa wadani tv.com. sida aad noogu barateen waxaan nahay kuwa u taagan qadiyada dalka diinta shanta Soomaali oo aaminsan inay mar midoobi doonaan Soomaali weyn haddii la helo dowlad daacad iyo dalka iyo dad daacad ah oo danta guud raadiyo. taasi waxaan rabaa maanta barnaamijkan oo ugu magac daray uu yahay Soomaali garaawso qaladkaada u garaaw Somaliland. barnaamijka hore ee wadani tv sii daayay wuxuu ahaa in Somaliland meel khaldan ay ka raadinayso madax banaanida, kaasi oo ah ka daawateen wadani tv. haatana waxaan rabaa in Soomaalida aan tuso khaladkooda iyo weli inaysan jirin wax Somaliland u garaabay dambigii ay ka gashay Soomaaliya 1988. haddaba Somaliland marka hore ila daawo xorriyadii markii la qaatay lagana qaatay Ingiriiska iyo Talyaaniga. Somaliland Soomaali jacayl darteeto ayay calankii intay u soo qaaday bilaa shuruud la'aan oo ay ugu dartay Soomaaliya, taasi oo ku tusayso halka ay Somaliland Soomaalinimada ay u jeclayd. haddaba waqooyi oo sidaa Soomaalinimada u jecel bal ila arag xilligii calanka ay ku wareejisay Soomaaliya oo markaas loo ogolaa xataa inay dowlad madax bannaan noqoto. daawasho wacan. maxaa loogu abaalguday Somaliland? abaalka ay Soomaaliya ku lahayd ee la midowday ay ku tustay Soomaali jacaylka. ila daawo 1988 markii dowladii Soomaaliya ay ka go'day inay weerarto waqooyi sidii iyagoo la jahadayo ummad gaala ah, bal arag amba bixi hubka Soomaaliyeed dhammaantii loo qaaday dhinaca waqooyi. hubkan oo aad dhihi kartaba waa dalkii aad xasuusan karto 77 dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxaa hubkani loo qaatay dal walaalaheen ah oo Somaliland ah, kuwaasi oo lagu baabi'iyay dhammaan dalka waqooyi oo idil wax la reebtayna aan jirin. masiibadan ba'ani ee loo geystay weli isma weydiiso Soomaaliya, bal arag taangiyadan lidka diyaaradaha ee aad moodayso in qaran lala dagaalayo. diyaaradahan miiga 23 waxa ay duqeynayeen iyagana caruur iyo haween aan waxba ugu abaaliyin. bal arag hubka sida ay naxariis darrada ahi ay ula dhacayeen Somaliland xilligaasi oo waqooyi ahayd 88 looma kala harin dagaalka Soomaaliya ee ku qaaday waqooyi. wado burbur, dhibaato, goys, minooyinkii xataa ay baareen. bal arag magaaladii Burco sida ay u baabi'iyeen ciidamada Soomaaliya ee militariga ahi iyo saraakiishii dhammaanba cid ka soo horjeesatay ma aysan jirin. qubabkan aad aragtaan waa qubabkii Somaliland ay u geysatay dowladii. dhibaatada jirdilka, kufsiga haweenka, wax loo kala aabayeelay ma aysan lahayn. baaba'a iyo xasuuqa ayaa u sii dheeraa burburka loo geystay. waxaa kale oo xataa ay dhibaato kale ka soo qabsatay miinooyinkii la aasay ee markii ka baxday Soomaaliya 1991 xataa ee qaramada midoobay muddo 15 sano ah gaarayso hubka la baabiyay. ciidamadii SNM mujaahidiinta la dagaalamayay dowladiina waa kuwan. arag taangiyada BMada waxa loo kala naxariistay ma aysan jirin. waxaad dhihi kartaa waxaa lala dagaalay waa dal cadow ah oo Soomaaliba aan ahayn. ciidamadii markii baldaawo burburka magaaladii Hargeysa sida ay u baaba'day oo loo baabi'iyay.
masiibo iyo halaag ayaa ku dhacay ilaa Hargeysa waqooyi dhammaan ay ka kaxeen dadkii reer waqooyi oo idil oo ay galeen dalka Itoobiya halkaasi ay ku noqdeen qaxooti gaar ahaan xarunta Xarshin daawo meydadka silacsan ee reer Somaliland oo arag oo eeg waxaan rabaa Soomaalida inay gar qaadato oo aragto dhibaatada Somaliland loo geystay ee ka keenay inay xornimo raadiso marka aad maqasho Somaliland oo leh xornimo ama waa madax bannaanahay danqashada ka danqanayso Soomaaliya eeg dhibaatada hore ee loo geystay ee dawladda Soomaaliya ay u geysatay taas wali wax ka raali galiyay ma jiraan hal dawlad oo qablayaal ama nooc kasta oo soo martay xataa Shariifka ku daro wali yiri dhibaatada Somaliland waan ka xunnahay ma iisan jirin ilaa haatan taasina waxay ku tusaysaa wali Soomaaliya in aysan wax qalad ah inay gashayba aysan u haysanin way istaahishaa in Soomaaliya maanta ay hoggaanka u qabato oo madaxweyne ay noqoto amaba ay dalka Soomaaliya ay ka madax bannaanaato waayo waajibkeedii looma abaalgudin calankii ay noo keentay ee Soomaali jacayl iyo midow noogu keentay waxaan ugu abaalgudnay taangiyada iyo hubka Soomaali oo dhan in lagu burburiyo waqooyi caruurtiina lagu laayo haweenkiina lagu kufsado arag magaaladan sidan u gumooday ama u baabaaday waa Berbera shacabkii ayaa mar kale ku soo laabtay magaaladii arag taangiyo miinooyinkii ay aaseen ilaa xilligan waa meelaha qaarkood ayay la kacdaa waxaa ku luga waayay ku curyaamay dad aad u fara badan oo reer waqooyi ah bal silaacan iyo qaracankan ayay soo mareen seed ku dhihi kartaa inaad diido madax bannaanidooda seed u yeeli kartaa inaad damiirkaadu uusan daqan oo mar kaliya la helo mas'uul ka raali geliyo Somaliland waxa ka gaaray waqooyi Soomaaliya dawladda haddaba waxaan rabaa inaad isweydiisaan walaalayaal yaa khaldan Somaliland waa laga khaldan yahay Soomaaliya uma iidan abaalgudin aabow sidaan kugu lisay iguma aadan hambayn Soomaaliya waqooyi way ku xadgudubtay xadaaf aad balaaran ilaa xilligana ma hayno mas'uuliyiin aad ugu raali gelisay ama ka qancisay waxay istaahilaan haddii xataa ay madax bannaanaadaan in magdhow laga siiyo dhibaatada walaalada Soomaaliyeed ay u geysteen halka kale Somaliland waxaan xasuusinayaa hal sheeko qudhigooda oo dareensiinayo inay qudhigooda meel ku khaldan yihiin waxaa jiray xilliyadii Soomaaliya beela ay isu dagaali jirtay beel habeennimo la miray oo la baabi'iyay caruur iyo dhammaan ciribtana la mariyay waxaa markaasi ay suurto gashay in ay qoladii inay ka aarsato mar kale u soo kacday markay soo kordhageen habeenkiina ay rabaan inay miraan ayaa waxay arkeen reerkii oo la miray oo baaba'ay way u naxariisteen oo caano iyo biyo iyo ku qabteen dadkii dhaawaca ahaana way u daweeyeen wayna duugeen waxay dhaheen naga keena ilaahay baa nooga aaray wax dhibaatana uma iisan geysanin haddaba marka waxaan rabaa inaad ogsoonataan Somaliland dhibaatadii idinkan inay geystay arag 20 sano dhibaatada Soomaalida ay isu geysanayso aabe iyo hooyo ayaa isdilay wiil iyo aabihii ayaa isdilay dhibaatada ilaa xilligan xasuuqa iyo dhibka 20 sano ee caalamka ka daqanayo waad aragtaan tanina waa masiibo ilaahay ku habsatay oo Soomaaliya ah waxaan markaa dhihi karaa idinka qudhigiina inaad garawsataan oo aragtaan in masiibadii idinkan inay geystay xaq alla iyagana lagaga guday taasina waa inaad ogsoonataan waa xaqii aad ku lahaydeen Soomaaliya marka inaad idinka qudhigooda caafimaadaan oo aragtaan dhibaatada maanta tan idinkan inay geystay waxay socotay muddo 2 sano ah 88 ilaa 91 way dhamaatay laakiin tan 20 sano ee halaaga iyo dhibka wali taagan iyo baabaa ah ogsoonow in ay baabaaday in dadka Somaliland in ka badan maanta ay god ku jiraan marka adiga qudhigaada waa in ay Somaliland garawsataa oo aragtaa in ilaahay dhinaca kale inta uqobadoodii uu ka soo saaray marka ma aha in Somaliland wali ay ku sii taagnaato uqdadii ku sii jirtay ee ah Soomaali nacaybka إن شاء الله تعالى دولتها نقصوا والله الصوماليين وحين نكون دونان كوا كم بحياه أما بحق دورة أما بصومالي الله سيرته أصمياه وأكس كدي دونه باقنا أنا ودني تيفي وقصوا صاري لبعتدي لوجستي الصومالي لأن حلقي دولتي صوماليين ودمان صوماليا إرالي كجا أخاين سراكيش صوماليين عد كسروا دزتي إزنجرين حق أي أوليهن مانتا حرمة أما ماذا حس صوماليين إن نقدان oo aan gorgortan la gelin logumana abaalgudin sidii loo inoogu soo hambeeyeen ama ay Soomaalinimadii iyo wanaaga caalamka noogu keeneen mahadsanidin halkan waa Wadani TV
daawasho waa annaga oo mar kale barnaamijkan ugu magac daray Soomaali u garo Somaliland inta aadiidayso xornimadooda. taasina waxay ku tusaysaa in annagu sidanada barnaamijka Santa Soomaali haddaan nahay Wadani TV aan jecelnahay. mahadsanidin.